السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaa runtii aan idinku mahad celinayaa oo sharaf weyn ii ah sida wanaagsan oo waaltinimada leh aad nagu soo dhaweyseen aniga iyo wafdigeyga intaasna ajar iyo xasan Allah idinka siiyo waa sharfantihiin markaan hadalkiina dhageystay saddex arrimood yaa ii soo baxday waxa ii soo baxday dib u heshiisiin in loo baahan yahay waxa ii soo baxday in dib u dhis loo baahan yahay magaaladan tan saddexaadna dib u xoreen in loo baahan yahay saddexdaasna aasaas waxa uu ah cadaaladda maxaa yeelay cadaaladda adaa ku nool iyada kuuma noola meel aan cadaalad lahayna ilaahay ma karaameyn ilaahayna waa carooday waana waxyaabaha hadda aan arkeenno oo aan ka hadlayno waxaan ka hadlayno inta badan dhibkana haysta abaaraha iyo colaadaha aasaas waxa uu ah cadaaladii aan ka tagnay marka cadaalad haddaan ka tagnay saddexdaas aan sheegteen lama wada heli karo waa dhab suu sheegay saaxiibkay xildhibaan dalxa magaaladan waa ku soo koray waa runtiis waa imaan jiray keligeena maahee soomaali oo dhan yaa imaan jirtay magaaladan magaalo fiican oo soomaali u dhaxaysa oo daris wanaag leh oo dad fiican ay joogaan iyay ahayd haddana waa la baadigoobi karaa waana la heli karaa maxaa yeele dadkeedii idinkaa ah dowladdaani waxay ballan qaaday inay ka shaqaynayso dib u heshiisiin dib u heshiisiintana magaaladaani ka bilaabaysaa hadduu ilaahay yidhaahdo dib u heshiisiinta macnaheedu waxay tahay in la wada noolaado in lais ogolaado dad soomaali oo walaala ah yaan nahay waxaa ku xigta in lais cafiyo oo lais ogolaado yaa ku xigta intaas haddaan la helinna haddii qof ku noolaan kara marka ma jirto marka annagu marka dowladdii dhexe ama dowladda federaalka ah waxaan kow saaraynaa wax kasta aan qabanayno dib u heshiisiin maxaa yeele dadku haddaysan isku calool fiicnayn haddaysan dadku walaaloobin ammaan lagama hadli karo marka waxaan idinka codsanayaa inaad kow ka noqotaan oo aad nagala shaqaysaan arrimaha dib u heshiisiinta dad wanaagsanaad tihiin dadka hadda ku nool iyo dadka yimidba labadaba ilaan waa magaalo soomaaliyeed ciidamadayda qalabka sida ogaada duruufo adag ay ku shaqeeyeen waxay ku shaqeeyeen caafimaad la'aan waxay ku shaqeeyeen mushahar la'aan ogaada waxay ku shaqeeyeen mushahar la'aan waxay ku shaqeeyeen daryeel la'aan oo kii dhinta carruurtiisa aan dib loo fiirinayn kii dhaawacmana aan la daryeelin duruufahaas ogaada saasay tahayna iyagoo kaneecadaas iyo dhaxantaas bannaanka u taagan oo mushahar qaadanayn yay hor taagan yihin qoladan daalimiinta ah oo inkaarta qaba way hor taagan yihin waana ku dhimanayaan 100 jeerna waad ogtihiin in magaaladan lagu soo weeraray oo ay difaaceen waa ogtihiin yaan laga abaaldhicin ma maqlaysaan wiilashayda laga bilaabo maanta hadduu ilaahay yidhaahdo qofkii lagu arko isbaaro wiilashayda ma aha waxaan u soo kaxaystay guddoomiyahayga maxkamadda aawey liibaan yaan u soo kaxaystay waa qaadicu dariiq ogaada wiilashayda ma aha ninkaanan u taagan maxaan ku dhaha janaraalkayga u taagan ninkii soo qaban lahaana waa kana aawey booliiska jenaraal saacid aawey ee sambaloshe waa raggaan wey haddaa aragtaan nin lacag idinka aruursanaya waa la wada dagaalaynaa diyaar muu tihiin annagaa mushahar siisanayna ciidamadeenna ma maqlaysaan ninkii wax ka badan raadiya ninkaanaa u taagan yarow yaa u taagan ma garat tiiraana sugaaya maxaa yeele qaadicu dariiq diinteennaa diidday annaguna ma ogolin ma maqlaysaan jidka ka baxaya halkan oo ilaa baydhabo tegaya baryahan o dhan baan ka shaqaynaynay nin ciidan darays qaba oo jid istaagaya oo isbaaro dhiganaya ma jiraayo isna insha allah mushaharadooda annagaa meel saarayna qofkii dadka dhiba marka
وعدو صوماليات وعدو إسلام ويه دولة داني دولة حول كتمد معه ودولة شعب رابطان شعب كتمد ويه أودا إذيك أسكره أنه ملهين أنه وحانين هاي أديجي من مغلسان وأن إذين أديجنا وكلية وحان إذين أديجنانا وعفر سنو ومامور والبلو طلق إنه جوجو والديمقراطيات هادو شغل في عن قبطنا وجوجي هادو شغل حون قبطنا إذيك بحناية إن شاء الله وحان إذين شيء أنا أفر سنو كحكت شغل إذا معها ما أنت شغل إذا طاي ما أنت من مغلسان وما هالقلتاجي أفر سنو صوص عضية وح كدم بيا ما أنت إن وح لقبته إذا كان عايقل الشقيسان